dekedan cusub ee ku soo korodhay mandaqadan deegaanka Soomaalidu maadaama uu dalka Itoobiya cidda ugu badan ee ka faa'iidi doonta uu noqonayo geography ahaan sida uu yaalo iyo shacab ahaanba inaan diyaar u nahay in kaalintanada ka ciyaarno dhabahaana shaqooyin qabsoomay haddaba ay jiraan waxaa ka mid ah in wadda laamiya oo isku xidha magaalada Qabri Dahar iyo Wardheer ay hadda dhammaan tahay oo ay dhammaanayso taasoo jirta inay jirto wadda kale oo la qorsheeyay oo ka soo bixi doonta Dhagaxbuur Awaare Danood ilaa iyo Galaadi imanaysa oo iyaduna ku jirta qorshaha in la sameeyo waxaa loo baahnaan doonaa in la soo gaarsiiyo ilaa Tuurdibi laakiin shaqadaas marka ay dhammaato waxay xoojin doontaa ka shaqaysiinta dekedan haddii la yidhaahdo sidaad la socotaan dalka Itoobiya waa dal shacab fara badan leh ganacsi badan ka socdo dhaqaaluhu korayo waxaa sii kordhin doonta baahida loo qabo in la isticmaalo dekada fara badan sidaa daraaddeed dekedan si gaara waxaan u naalaa sida dalka Itoobiya waxaan ku teedsanahay dalka Soomaaliya oo dhan iyo geeskaba ilaa Kenya ilaa Djibouti ilaa wadana fara badan marka laakiin gobollo si khaas ah ay dekadu uga fog yihiin baa jira waxa kamid ah gobollada hadda aan Arab ku dhuftay anaga deegaan ahaan ma oo kaliya goboladan dhexe ee deegaankanaga sida Wardheer Qabri Dahar inahaas halka maraya ilaa iyo Nogob dhulka la yiraahdo laakiin dhulka Oromiya badankiisu shacabka ugu badan ku nool yahay qaybo badan oo harar kamida qaybo badan oo Arsi iyo Baale ka tirsan waxay si toos ah ugu dhawaan doontaa dekedan marka dekedan xisaabtankeedu waa inuu noqdaa mid dhaafsiisanba deegaanka Soomaalida mudanayaal intii isbedel ka dhacay dalka Itoobiya ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed uu qabtay xilka isbedel ballaaran oo dhanka isdhexgalka iyo wada shaqaynta amniga ayaa ka jira yaan oran karnaa geeskan waxa makhraati ka ah Puntland diyaaradaha hadda yimaada Garowe iyo Boosaaso waxay bilowdeen labadii sano saddex sano u dambeysay taasoo si weyn wax uga bedeshay dhaqaalaha labada dhinacba waxaan xog ku hayaa in 45% kor uu kacay ganacsiga Boosaaso dekeda Boosaaso oo kale intii isbedelkaasi dhacay waxaana badankeedu uu ka yimid isticmaalka ganacsatada Itoobiyaanka ay isticmaalayaan dekedaas waan sii xoojin doonaa arrimaha noocaasa waana ku faraxsanahay dekedan cusub soo korodhay in aad u fara badan mandaqadan waxa ka jiray dagaallo fara badan oo runtii dadka deegaanka la haray marka deegaanka Soomaaliya anagu waxaanu isu diyaarinaynaa inaan noqono centerka Horn of Africa Regional Integration Initiative ka la wado in aad u fara badan deegaanka anagu meesha uu ku yaalo wuxuu ahaa meel ka soo fog centerka dalka aan ka tirsanahay Itoobiya marka periphery baan ka ahayn Itoobiya sidoo kale dadka ugu badan dhaqan iyo dhiig iyo ganacsi la leenahay ee Soomaalidana dad ka fogo periphery baan ahayn marka waxaan isu position garaynaynaa inaan noqono the new center of the Horn of Africa inaan periphery ahayn ee aan gunti laga duulay noqono ayaan isu diyaarinaynaa qayb kamida qorshahaasina waa inaan ka qayb qaadano ganacsiga maanta halkan ka bilaabmi doona waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay madaxweyne Mustafa dadaalka xaggaas Itoobiya walaaleen ka soo socda maxaan ku raadaa xuduudda infrastructure-ka xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya in isku xirmaan oo ay sahlanaato in labada dhinac la isaga socdo ka hadlay waxaan rabaa dekedan wadada ku xiraysa Itoobiya dhaqaalihii ugu horeeyay in hadda maanta saacadan aan inta joognay in la soo ogolaaday oo meel la soo saaray ilaahay idankiis wadadaasi si xawli ah oo dheeri ah oo muddadii maxaan ku yiraahdaa la qiyaasay inay ku qabsoomi doonto si ka gaaban inay ku qabsoonto ah ayay u dhici doontaa waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho oo wada fiican oo maxaan ku yiraahdaa miisaanka iyo muhiimadda dekedan leedahay qaadi karta inay noqoto haddii aan la yiraahdo sidaas ayaan muxuu ahaayay jamhuuriyadda Soomaaliya dhinacyadeeda dhan oo maxaan ku yiraahdaa yaa infrastructure-ka nagu xiri lahaa Itoobiya hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay energy-ga muxuu ahaay xaggaas haddii annaga dekedaheena ay xaggan wax uga tagayaan xaggaasna wax badanaa muxuu ahaay mustaqbalka nooga imaan doono oo ay ka mid tahay energy-ga oo ka mid yahay oo Itoobiya hadda ay meelo fiican ka sii marayso aan rajaynayno mustaqbalkana meelo kale inay ka sii gaarto dadka labada dhinac degan in ay nolol fiican helaan
hadafkeenna ugu horreeya waaye soomaalida xuduudda labadeeda dhinac deggan maamul kasta ha ka tirsanaadaane siyaasadda waa halkeeda laakiin inay horu maraan oo noloshooda ay qorxoonaato ooy macno yeeshaan ayaan rabnaa wax kasta oo fududaynaayana dawladaha deriskaa waa kala shaqaynaynaa annaguna waa ka shaqaynaynaa ka dawladda federaalka ahaan haddii alla yidhaahdo ani weli ma tegin regionka soomaalida laakiin madaxweyne mustaf intuu qabtay soomaalida waxay dhahdaa qorrax soo baxday sacab laguma qarin karo qofka tagoo regionka soomaalida big development annaka suuriga waan la socona success stories marka dawladaha haddii lala shaqeeyo ama dawlad goboleedka ama dawladda sare faa'iidada waa la heli annakana waxaan ku faannaa haddaan nahay soomaalida iyo hadda waddanka kenya markay regionka ay nabadgelyada sugnaato oo peace and stability la helo hadda soomaaliya waxaan rabnaa inay qayb ka noqoto suuqa weyn ee east africa community waa one step oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka shaqeeyey oo badeecada east africa community markay isku marayso canshuur lagama qaado faa'iido badanay leedahay marka hadda waa big development inay soomaaliya qayb ka noqoto the integration of East Africa community as an economic bloc. waxaan soo gaadhnay dekedda Garacad runtii dekeddan Garacad waa wax lagu taamayey ilaah baa mahad iskale fududeeyey waxaan runtii ayna tusaysaa in bani aadamku uu tashan karo oo shacab ay wax qabsan karaan waxay u tahay tilmaan cad dekeddan maanta ku taala Garacad oo deked weyn ah oo ku taala Indian Ocean waxaa dhistay ganacsato Soomaaliyeed oo isu tagay oo hantidoodii xooggoodii aqligooda tuujiyay baa halkan yimid jijigada way nagu yimaadeen waxaan dhihi karaa dekeddan mustaqbal bay u tahay aad u fiican Soomaaliyana u fiican tahay wax weyn bay u taraysaa dawladda Etoobiyana wax weyn bay u tahay gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxaan isleenahay wax fara badan ayaa dekeddan u noqon doontaa insha Allah mustaqbalka inaan ka faa'iideysano dhoofinta xoolaha wax badan baan isleenahay way ka surowaysaa waxaan isleenahay shidaalka deegaanka Soomaalida ku jiraay oo u baahnaa runtii meeshu ka dhoofi lahaa qudhigeeda waxaan qiyaasaynaa dekeddan Garacad inay u tahay istaraatiijiyad aad u weyn oo runtii miisaan weyn leh oon rajaynayna xataa inaan barnaamijka shidaalka deegaanka ku jiraay looga dhoofin karo dekeddan Garacad waxay aad ugu dhowdahay deegaanka Soomaalida marka la cabiro kilomitir ahaan gobolka Qorraxay oo aan gobolka ka socda ahaa iyo dekeddan Garacad 600 kilomitir bay isu jiraan runtii waxaan dhihi karaa waa wax aad u fiican weeye waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala mustaqbalka shacabka Puntland iyo shacabka deegaanka Soomaalidu isku xir fiican u iman doono waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala socodka hadda aan ku nimo socod ka weyn xataa inaan ku iman doono oo ganacsadii iyo odayaasha deegaanka isku xil xog leh sameynaa inay inoo fiican tahay runtii waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga dekeddan waa istaraatiijiyad waa mustaqbal maanta iftiimaya dadkii qabtayna waxaan leenahay wax weyn bay u yihiin Soomaali waxayna tilmaamaysaa in dadku isku tashan karaan wax qabsan karaan waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inaan ka faa'iideysano ujeedada safarkayada uu ahaa in aanu ka qayb galno furitaanka dekedda Garacad runtii wax aad iyo aad loola yaabo weeye waxaanu arki jirnay deked dad ay dawladda samaysaanu arki jirnay oo kharash fara badan uu galo oo mucaawanooyin dibadda oo ka baxsan dawladda ay ka qayb galaan dhismaha dekedaha sidaan ku naqaanay dekado fara badan oo Soomaaliya laga dhisay nasiib wanaag sida naloo sheegay amba xog aanu ku haynay dekeddan waxaa dhistay shacabka deegaanka Puntland degan baa dhistay sida xog aanu ku helnay oo amba mar hore naloo sheegay amba eega naloo sii xaqiijiyey nin dhalinyaro ah oo u shaqayn jiray xawaalad u shaqayn jiray ayaa xawaaladii iskaga tegey intay khalad lacageed uu dhacay isaga tegay isagoo wartaanasi uu ka sameeyey isagoo iska jooga magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso iyo meelaha isagoo iska jooga ayuu Ilaahay hadduu kunayahay wuxuu ku fikiray fikir isagu Ilaahay ku soo dejiyey in Garacad laga sameeyo deked laga sameeyo fikirkii isaga ahaa waa kan maanta aan u joogno furtaankii dekedda aan u joogno way halkaas waxay ku tusaysaa
lacag fara badan oo la haysto iyo xoog badan oo la haystaa waxaa ka muhiimsan fikirka oo la helaa ka muhiimsan marka annaga dan waxaanu ah dekeduhu inay farabataan ayaa dan noo ah marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhul fara badan oo aad uga fog dekedaha Berbera iyo Jabuutiba ka fog ayay Garacad ku furan tahay oo ku aadan tahay marka waxaan rajaynaynaa ganacsiga iyo nolosha dadkanaga wax fara badan insha Allah taala inay iska bedeli doonaan oo annaga iyo dadkan aan walaalaha nahay ee dekedan samaystay iyo xukuumadahooduba in aanu iskaashi dhaqaale oo dhab ah in aanu yeelano ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh